ciidamada xoogga Soomaaliya waxaa la aasaasay 12 Abriil 1960 waxaana uu ka kooban yahay ciidamada lugta, badda iyo cirka. ka hor dagaalkii 77 waxaa ciidamada lagu qiyaasay in tiradoodu ay ahayd 23 guuto oo ciidanka lugta ah, 2 guuto oo ciidanka commandoska ah, 9 guuto oo kuwa taangiga ah, 9 guuto oo kuwa madaafiicda goobta ah, 4 guuto oo ciidanka difaaca ah. ciidanka cirka diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 diyaaradood, 24 ka mid ah waxay ahaayeen MiG-21. sanado badan oo burbur dalka uu ku jiray kadib, madaxweyne Farmaajo waa hogaamiyihii dib u soo celin lahaa awoodii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. waqtiga inta badan waxaan siinayaa ciidanka. waqtiga inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankan siinaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka, xagga dagaalka. ilaa dalkan aan ka xoreynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad. Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa isku filnaan iyo inay ka maaranto ciidanka shisheeye, waxaana hadafkaasi si loo rumeeyo madaxweyne Farmaajo waxa uu wadaa dadaal joogto ah. bishan gudaheeda madaxweynaha Soomaaliya waxa uu kormeer indhaindhayna uu ku tagay xerooyin ciidan oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu xafiis uu ku shaqeeyo uu ka furtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, isagoona ujeedkiisa ugu weyn uu yahay dhiirigelinta iyo la socodka hawsha dib u dhiska ciidamada xoogga Soomaaliya. dhalinyarada waxbarata ee dalka ayuu madaxweynuhu ku amray in hoggaanka ciidanka iyaga loo dhiibo si loo helo maskax caafimaad qabta isla markaana ka fiyow qabyaaladda. markaad dib u raacday taariikhda xoogga dalka Soomaaliya oo si akhrisid waxaa aasaasay dhalinyaro uu ka mid yahay Allah naxariistay General Daawud. marka liidana General Daawud waxaa laga yaabaa xilligaa inay secondary ahaayeen, maanta waxaa naga buuxa jaamiciyaal master rag ah baa nagu jira. waxa xaqiiqatan lama hilmaan in aynu u dhownahay oo saaxiib la nahay geerida. taas baa lama hilmaamaan, balse waxaan dirs la nahay haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guusha markasta waa dardargelina. si niyadda ciidanka kor loogu qaado, madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga u saaray si loo joogteeyo mushaarka ciidanka, in askari walba uu mushaarkiisa uu kala baxo akoonkiisa. taasna waxaa kalsooni badan ay gelisay ciidamada xoogga Soomaaliya. Gaashan digo goyaha ka joogsada.